war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanya waxa uu digreetay madaxweyne uu isku bedel iyo magacaabis ku sameeyay golihiisa wasiirada Soomaaliland isagoo buuxiyay qaar ka mid ah wasaaradihii ay baneeyeen wasiiradii hore magacaabayna afayeen cusub madaxweynuhu markuu arkay qodobka 9aad farqadiisa labaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markuu tixgeliyay ahmiyadda weyn ay wasaaraduhu u leeyihiin dalka iyo dhismaha qaranka markuu arkay in baahi loo qabo jagooyinkan kala duwan markuu ka fiirsaday kartidooda aqoontooda iyo hufnaantooda shaqo markuu ku qancay inay hanan karaan xilalka loo magacaabay wuxuu go'aansaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo in mudane Maxamuud Xaashi Cabdi laga bilaabo taariikhda maanta uu hado wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland waxaanu hore u ahaa wasiirka duulista in mudane Cali Xasan Maxamed Cali Marixaan laga bilaabo taariikhda maanta uu hado wasiirka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland horena waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland in mudane Cali Maxamuud Axmed Cali Sanduula laga bilaabo taariikhda maanta uu hado wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland horena waxa uu ahaa wasiiru dawlihi arrimaha nabadeynta ee gobolada bariga in mudane Cali Xuseen Ismaaciil Jirde Cali Shombe laga bilaabo taariikhda maanta uu hado wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland horena waxa uu ahaa wakiilkii Soomaaliland u fadhiyay dalka Kenya in Dr. Sacad Cali Shire laga bilaabo taariikhda maanta uu hado wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland horena waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta in mudane Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani laga bilaabo taariikhda maanta uu hado wasiirka wasaaradda duulista ee Jamhuuriyadda Soomaaliland horena waxa uu ahaa wasiiru dawlihi maaliyadda ee Soomaaliland in mudane Xuseen Aadan Ciga Deyr laga bilaabo taariikhda maanta uu hado afayeenka madaxtooyada Soomaaliland war-saxaafadeedkaasi oo ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa ku saxanaa xogayaha gaarka ee xafiiska saxaafadda madaxtooyada Soomaaliland mudane Naasir Yuusuf Daahir